mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan jooga oo maanta u badan bangiyada iyo mas-uuliyiinta kale ganacsatada ah xubnaha kala duwan ee halkan fadhiya aad iyo aad ayaan idin salaami السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسو مرتين لا أشجعي للرجالين تا يهنونين تا يوحكوا سكرين تا جناسيا حفيزك أو كصعدة أيام كشقيها. سدرتيد جناسة تدورن بان وحنقولنا هاي مال أي كسوهرتان كنا ساقول ما. سدرتيد هذا حاول رغبنا ganacsatada Soomaaliyeed dib iyo dheef waxa ay qabaan marka waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo shirkaddan isgaarsiinta sida la xusay muddo dheer jirtay haddana sharciyan rabta inay shaqo gasho saan maqashiisna hayna kulamo kale oo ballaaran la isugu imaan doono waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waxaan idinkugu hambaliyeynaynaa waxa aad soo kordhinaysaan inaysan ahayn shirkad cusub inaad soo kordhisaan tartan cusub inaad soo kordhisaan ganacsiga Soomaaliya waxa la rabaa inuu u sikado dhinaca tayada anihii Soomaaliya way dadaalaysaa gaar ahaan ganacsiga gaarka loo leeyahay dadaalaa laakiin hadda kadib in lagu tartamo laguna kala haro dhinaca tayada ayaan soo jeedinaynaa oo shacabka Soomaaliyeed ee macaamiisha idin noqonaya ay gartaan waxa ay shirkaduhu ku kala fiican yihiin sadarteed tartan xoog leh ka qayb galaysiin tayada korina u qaadaan ayaa muhiim ah way hadda kadib halkaas buu aadi doonaa ganacsigu waxa kale oo idinku ugu hambalyeynaa Soomaaliya dhaqan ahaan wadan hantigoosiya ma ah shacabkeeduna ma aha dad hantigoosiya laakiin waqtigii 30 sano u dambeeyay wixii la dhaxlay waxa ka muuqata oo taariikh cusub oo qormaysa ah Soomaalidu inay u socoto dhinaca ganacsiga iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay in loo shaqeeyo sida darteed waxaan ku talinaynaa soo jeedinaynaa shaqo abuur xoog leh oo ay sameyn doontaan in uu noqdo mid tartan ku yimaada isaga naftirkiisa iyo tayo ku yimaada ayaan dhiirigelinaynaa waxaan rabnaa in aan wax yar aan bilaamiyo marka halkaas marka la joogo waxaan rabaa inaan bilaamiyo Soomaaliya waxay ka ganacsataa wax wadamo fara badan oo dawladnimada nooga horeeyay dhul ahaan iyo dad ahaan naga badan oo qaaradda Afrika ku yaala haddaad tagto wadamada ugu waaweyn qaaradda Afrika ma sahlana inaad soo aragtid dhowrka ganacsi oo aan sheegayo oo inay leeyihiin dadka Afrikaanka ah waxa laga yaabaa wadankaas ganacsigaas waa ka jira laakiin dad ajnabi ah ganacsigaas kale laakiin maanta Soomaaliya waxay gacan ku haysaa waxyaalo aan looga baran Afrikaanku inay yeeshaan ganacsigooda maxaa kamid ah laga yaabo dadka inay kaftan u qaataan laakiin Afrikaanka wadamadooda haddaad tagtid ma jiraan kambaniyo caymis oo dadka wadanka u dhashay leeyihiin ma jiraan kambaniyo isgaarsiin oo dadka wadanka u dhashay leeyihiin ma jiraan bangiyo ee dadka wadanka u dhashay leeyihiin ma jiraan diyaarado ee dadka dalka u dhashay leeyihiin ma jiraan maraakiib ee dadka dalka u dhashay leeyihiin sidaas darteed ganacsiga Soomaaliyeed meesha uu u socdo haddaad rabto inaad fahamtid halkaas oo u socda ganacsiga Soomaaliya waxa aan looga baran dadka Afrikaanka ah inay ka ganacsadaan ay Soomaalidu maanta gacanta ku haysaa maxaa la iska rabaa waa marka waxa la iska rabaa oo laga yaabo halkaas inay ganacsatada ku filayn laakiin inay kaalmeystaan maadaama ay xubno dawladda kamid ah ninka dhalinyarada iga horeeyay halka ka hadlay oo wasaaradda shaqada ka socda rag kale laga yaabo inay ka hadlaan waxa la iska rabaa shuruucda suuqa ganacsiga in la xoojiyo la adkeeyo loo ekeysiyo kuwa caalamka hadhowdii hadday wadankan maalgeliyaan dad aan Soomaali ahayn oo aan rabno inay yimaadaan maalgeliyaanna waxaa la rabaa
sharcigii lagu dhaqi lahaa suuqa ganacsiga in uu yaallo qoran yahayna waxaa dhici karta dowladdanada inaysan weli sidii la rabay u hana qaadin ganacsatadu marka maadaama ay dan xoog leh ay dhinacaas kaga jirto waayo oo ganacsiga aad ku haydo Soomaaliya wuxuu la xiriiri doonaa xataa adoon Soomaaliya degan oo ganacsi meel kale ku lahayn ganacsato kale adduunka oo la xiriiri doonaa tusaale wanaagsan waxa ah isgaarsiinta telefoonada waxaa la xiriiri doontaa isgaarsiin ay dad kale leeyihiin oo soo wici doona midka halkan aad ka furaysid shuruuc fara badan aad dhexmari doonto bangiyada halkan aad ka furaysid bangiyo kale oo caalami ah ayay waxay dhexmari doonaa shuruuc fara badan halka ka dhala doonta haddoosan adkayn sharciga suuqa ganacsiga ee waddankanaga oo dawladdu ay weli hana qaadan ganacsatada mas'uuliyadda ka saaran in ay caawiyaan dawladda isla markaasna ay la yimaadaan dadkii shuruucda sameyn lahaa ayagu si hantidooda iyo wixooda loo ilaaliyo sida dadka martay la isoo dhawaan wax badan oo kale oo faa'iido leh waa sheegi lahayd aadan